عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سودا وولاشن فاتوش كنا كداوني سينا وفاتوش فاميلي ما شاء الله maantay waxyaabo badan baan rabaa inaan ka hadlo sida meesha aragteen waalidiinta su'aalo badan bay soo weydiiyaan ma sha Allah ilaahay ina deysto marka taas baan rabaa inaan inii kormaro 5,000 saa ku heli kartid dadka helaya noocyadaas aan rabaa inaan ka hadlo marka tagsiritaanka la gaaro sidoo kale su'aalo unemployment-ga laga soo weydiiyay ayaa maanta ka jawaabaya tagsiritaanka everything de wax kasta baa ka hadlayna marka soo dhawaada insha Allah barnaamijka subscribe saara gambaleelka furo haddii aad nagu cusub tahayna adiguna intoo kala sameeyay hore noola joogtana sidoo kale asxaabtana la share gareeya barnaamijka aad baad u mahadsantihiin dad badan oo jecel oo taageera ayaa meeshan ka buuxa anigana sidoo kale ayaan inay jecelahay السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحي ما دهي عاد قرح بدن waxaad ka heli kartaa store-kana online ka telefoonka naga soo ama snapchat-ka igala hadal sidoo kale waxa imaaday gooyaashii sariiraha iyo miiska qadada alaabti la saarayay shibna waan sameynaa insha Allah so hadaba su'aalahan ku hormaraya unemployment-iga soo weydiinayo so unemployment waa ognahay way dhamaatay waa hore hadda coronavirus uu socdaa unemployment wax bilaabo ma lahan yani waxa laga hadlayo mid federaalka ah unemployment-iga kala caadi bay u socota okay ha isku qaldinin okay dad baa su'aalo waxa laga inay isku qaldaan federaalka mid ahayd iyo tan midda unemployment-iga regular kala waa sida hadda qofku markuu shaqadiisa ka tago kale shaqadiisa ka tagamaya shaqadii ka dhamaatay shaqadii laga buriyay waa xanuunsatay anything can happen unemployment-iga regular-ka caadiga way socotaa midii socon jirta waa midda uu ku siiyo state-kaagu because canshuur buu kaa jaraa dee company baa u shaqaysaa lacagta lagu save gareyna meel lagu dhigaa lagu siinaa fahmaysa soo taa way socotaa waxaa soo harta midii hore federaalka waa hore joogta sanadkii hore bishii 9 bay joogsata lagu kala tagay magaca mid kale ma bilaabeen maya hadda miyaa la sheegay in mid kale la bilaabo maya because unemployment-iga badan waxa sababa markii wadanka shutdown laga siiyo stimulus waa la sameyn karaa stimulus waa la sheegi karaa laakiin unemployment oo federal level ma la sheegin maxaa kale ku soo haray dad badan waxay u leeyihiin fituushay waagi unemployment-iga qaadan baa inta dhacan loo soo rogtay aan leeyahay wixii hore qaateen soo celiya waa lagu dhihi karaa mistake way ku dhici kartaa waxa waaye su'aasha laga weydiiyay waxa fituushay ma leega cafinayaa haddii aan dee lacagta celin waayo iyo tax retaankayga miyaa laga goosanayaa okay so midda ma leega ceshinayaa lacagta hadiiba lagu soo diro warqadda waa wax kugu maqan ciddaan badanaa waxayse proof u haynin ma waxayaan so qof kasta oo unemployment lagu yeeshay oo ila soo xiriira waxa laga yaabaa qaladaad baad samaysay markaad xariisanayso for sure taas waa qaladaad baad samaysay haddii lacala ay qaladaad aheena waa dacwoon kartaa lawyer baa xiran kartaa waa lagula hadlayaa dee waa layna kala saaraya haddii sidii lacagta lagugu soo cadeeyo oo aadan still wixii aad proof samaysay dee ayo ka kacay tahay lacagta inaad iska bixisid waa inaad iska bixisid background-kaaga u fiican tahay waad yaryarayn kartaa waa inay yaryarayn karaa dhihi karaa laakiin xal baa la gaaraa so lacala haddii aad bilaabatid payment balaan wax la yiraahdo oo adiga tiri bishii intaas aan siina ana tax retaankaaga lama qaadan karo because already qofkan wixii waa xaliseen oo dee si sharciyana baad lacagta ku bixinaysaa laakiin haddii dhacdo way dhacaysaa kuma dhahayo wax kasta oo dawladda ku saabsan haddii IRS lacag kugu yeelato haddii dee unemployment-yada iyo meelahaas ay kugu yeeshaan waxay u fariisanayaan albaabka ay ka soo baxayso taxiga soo bax markay daba dhac ala siinano waa la qaadanaa fahmaysaa waa laga goosana waa marka qofka collection loo diro lacagtii bixin waayo waxyaabahaas waa so because dad baa weydiinay fituushay ma iga qabsanayaan ma iga qaadanayaan so taas aniga said kaagma sheegi kara xaaladaada ku xiranta laakiin waa loo fariisan karaa waa la qaadan karaa waa markii collection lagu diro lacagtii diidid inaad bixiso laakiin ilaa xal haddaad bixiso dee payment plan aad samaysid okay waay okay sidoo kale dadka ilmaha yarka u dhasheen 2021 aniga ma dhihiya dawladda ah 2021 haddii cunug ku dhashay tax retaanka markaa xariinaysa ku darsatid cunugaasi wuxuu leeyahay 3,600 oo lacagtii child tax security la qaatay iyo 1,400 oo ahaa kii laga qaadanayay stimulus check la qaatay okay isku daro 3,600 balaas 1,400 $5,000 okay 5,000 ayuu leeyahay
hooyin badanna waxaa jirta ila soo xiriir soo wacdo hadii cunug baa ii dhashay seeyala okay so insha Allah waad ku xareysan kartaa lacagtana waa lagu soo diray laakiin ha hilmaamin inaad dee adigu claim gareysid maxaa ka mid ah inaad markaa claim gareyn waxaa ka mid ah lacagtii markii aad xareynaysay waa inaad sheegtaa cunuga inuu saa'id kugu yahay oo hadda dhashtay automatically markuu arkaan 2021 inuu dhashay dee automatically saas lacagta ku leeyahay okay hadii la eedo marka sidaas ogaada because dad badan baa ku wareera oo marka qaarkood soo weydiiyay futushay ma helaya cunugaas lacagtii because the 2021ka waxa waaye ilmo badan baa maasha Allah dee kusoo biray xaafadaha dhan marka waad helaysiin laakiin marka taxi garitaanka xareysanaysid cunug waana taxi ku xareysataa su'aal kale waxaa jirta aad la iga soo weydiiyay xagga taxiga ilmaha lagu xareysanayo oo hadii qof kale uu ku xareysto hada ku xareysan karaa because complicated waa wax aad u adag markuu intuu qof 6 bilood lacag ku soo qaatay adiguna aad rabtay haddana inaad ku xareystay 6 kale ku qaadat soo markasta waxaa inay dirayaa oo arrintaas iiga cilmi badan dadka taxiga inay xareeyo anigu shaqadayda iyo joobkayga waxa weeye dadka shaqooyinkooda weyn kala yaqaanaya shaqadaydu waxa weeye in aan wixii news oo soo kordhay oo sharciyana the news-ka ku saabsan hadda waxaan la taxi ahaan la iris information ay soo saarto waxyaabahaas in la wadaago laakiin wixii markii computerka alaabta la gelgelina maartay application-ka iyo wax xisaabaadka wax la gelina qofka taxiga xareeya baa shaqo kule oo yaqaana hadii cunuga adigina u sheegtay waa tira cunugan qof baa ku soo xareysan jiro ama aabuhiis baa ku xareysan jiro saas maanta ana raba inaan ku xareysto dan wixii sharci asaga ku sheego sharciyo badan waxa jirta la maro ilmaha markii lagu xareysanayo hadii aabuhu uu ku xareysan jiray oo maanta hooyada rabta inay ku xareysto application iyo filim loo maraa jirta siyaabo loo maraa jirta iska soo bood ma jirto okay dadka kaliya loo ogol yahay ilmahooda back and forth inay u kala xareystaan waxa hooyadii aabaha kala tagay laakiin ilmaha isla haysto oo aabahana waqti buu haystaa hooyadana waqti baa haystaa dawladda marka inkastoo aan child taxi credit labadaba la wada siinaynin stimulus check waa la wada siinayay cunuga labada qofba wadu claim gareysa labada waa la siinayay because gurigan uu ku noolay guri kale uu ku noolay ma fahmaysaa cunuga labada stimulus check waa heli kara okay waa waalidku claim gareyn kara yani wuu codsan karay laakiin child tax credit waxa lagu dhahaa hal waalid bisa qaadanay okay hal tax return bis bay raacaysaa laakiin waxa loo ogolyahay 2020 in aabii ku xareysto 2021 hooyada ku xad rotation baa la yani way kala bedelanayaan ma fahamta sanadkan hooyada ku xad sanadkan aabay deynaa already dawladdu way ogtahay ilmahan in labada waalid ay kala qaybsadaan laakiin midaan badanaa dadkeena u badan yihiin ilmihii hooyada haysata aabii jaasi booda laga qata xaafadu ka bursan yahay waa ka maqan yahay ayadu waa qaab kale yani waa cashir kale u baahan in loo xulugu dhigo okay aad bad ma santir asxaab ay hob inay fahanteen inta yarta in la wadaago mar kasta channel-ka subscribe saar asxaabtana la share garee ilaahay khayr ha ku siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh